si kastoo inoogu xumaato nolosha duruuftana inoo gedgediso ma ahan inaan ka quusanno ka dhabaynta riyadeennii balse waa inaynu yeelannaa ruux ay ka buuxda rajo waxaynu samaysanaynaa waddadii aynu ku gaari lahayn rajadaasi si kasta uu u qarsoomo iftiinka oona loo gaaro wakhtigii qoraxdhaca habeenkana uu xirto daahyadiisa yacnii uu noqdo mugdi waxaynu daaraynaa shumacyadii rajada si ay inoogu iftiimiyaan waddada waxaynu qaadanaynaa nalalkii maxabbada iyo kalgacaylka si aynu u dareenno ammaan iyo xasilooni waxaynu ahaanaynaa kuwo ku soo celceliya mar walba inay beri ahaanayso maalin ka qurux badan maalintii tagtay biidnillaah waxaynu ku wala celinaynaa sidaasi ilaa ay ka soo dhalato subaxdii wadatay rajadii cusbayd si kasta oo ay duufaantu u awood badan tahay waynu socon doonnaa inagoo kaashanayna samir iyo dulqaad ilaa aynu ka gaarno derbigii guusha si kastoo ay u adkaato duruufta waxaynu ahaanaynaa kuwo ku nool rajo waxaynu ka xaqiijinaynaa riyooyin waxaynu muujinaynaa dhoola caddayn waxaynu tiraynaa ilmada waxaynu nolosheenna ka saaraynaa cid walboona nala garanaynin hadafkeenna waxaynu isku diyaarinaynaa sidii aan uga soo muuqan lahayn masraxyadii nololeed aynu annaga u qalannay koonkanna waxaynu ka buuxinaynaa dhoola caddayn aad u qurux badan xeelad iyo awoodna ma lihin ilaa waxay u ahaatay rabbigeenna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu